الله ما هاد سكله وكنت نو صورة قليل أنا عاوه هالكسوي مع إنه وأنا ذكرت هاد علنا يا حقيقة أقبلات أقبشين قد سجى عاونا نحزمه واعتمادان بالصومالية أنا الرب إن الكوهم بليايو الكوهم هاد عليو سدح مع الموت وأسمي سين بندق هالابور كاه أنا وحنا أهم سنة هاي إن هي هالابور جيسين ما بدن وضطه كلية ما هين إن innovation كلية هيد أو واحد قبتين يو واحد قريسين سو سارسينه أنت أسوي كبلارنته وحنا كبلارنته أنا وادين شيء جاية وحن ربعنا الأمة عليو كقب قرياشة يو ضدك إسبونسر قري يجوه الريان كان عصت هذا تهبشيل هرمود سلامة IBS آدي رنتي كانوا هاد علنا يا أجري حسن الله يكسيه حيالي وحاقبتين رنتي وكون تهي كلية إلى سبونسر قريسان waxay ahayd dhiirigelin aad ku dhiirigelinaysan dhalinyaradu inay maskaxdooda shiilaan oo ay aad u shaqeeyaan ay curiyaan wax soo saaraan waana runtii waxa ugu wanaagsan oo investment la geliyo way aad iyo aad yani ka mahad celinayaa waxaan u mahad celinayaa qabanqaabiyey organizerska hawshan runtii iyadoo la og yahay in magacyo xun nalaga faafiyo sumcad xun nala siiyo ku dhiiraday inay qabanqaabiyaan oo abaabulaan oo runtii ka miro dhaliyaan inay qabsoonto aad iyo aad runtii aan uga mahad celinayaa iris aad iyo aad runtii dadaalka aad geliseen hawshan iyadoo kale sidaasoo kale idinkaga mahad celinayaa waxay ogtihiin imageka iyo sumcadda maanta soomaaliya ee leedahay oo soo taxnaa muddo 30 sano ku dhawaada oo markii aad geliso google-ka ama markii dadka la weydiiyay Soomaaliya image u soo baxay markiiba wax fiican maaha marka waxa isbedeli kara waa idinka dhalinyarada way adduunyada waxaas waa soo wada martay annaga uma horeyno waana looga horeeyay laakiin kuwii nooga horeeyay waa ka baxeen waxay ka heleen reference khibrad iyo ka heleen dib damban uguma noqon markastoo wax ka qasmi rabaan taariikhda waxay tusaysaa inta qof ku dhimatay sababtii dhibkaas uu bilowday iyo wixii ay ku mutaysteen waxa soo waday markii si loo fiiriyana waa dhibaato maxaa yeelay 30 sano ka harnay caalamka 30 sano yaan dhiig umadu dhex dabaalinaysay iyo dhibaatooyin iyo qax iyo abaaro iyo hadda fatahadan biyaha ah oo wax badan laga qaban karay marka in aan wax ka barana marka intaasoo idil aan marnay waxaan qabaa idinka way dadkii ka bixin lahaa dhibkaas ma aha dawladda kaliya dawladda waa sax iyada laga rabaa inay dadkii wax u tilmaanto oo ay shaqadeeda organize garayso oo dadka ay howlgeliso oo ay wacyi geliso ay tusaaleyso laakiin waxa laga rabaa xoogii dhalinyaradii yaa laga rabaa sida hadda maskaxdiina u shiilaysaan inaad ogaataan dalka dagaal inuu ku jiro aad ku baraarugsanaataan sidii dagaalkaas aan uga adkaan lahayn cadowgeena waa shabaab waa xaqiiqa cadowyo kalena waa iska jiraan Soomaaliya aan doonin inay istaagto sabab badan awgeed waa tanaa annagoo dhib ku jirna yaa waxaad ka fikiraysaan innovation inaad curisaan ganacsatadii waa maal gelinayaan meel laga heli karo mar intaas marka haddii lagu daro dawlad adag iyo dawlad wanaag iyo stability lagu daro waxaad garanaysaa inaan dad badan noo arki karaan khatar noo arki karaan marka dad baan rabin marka inaan gaarno meeshaas inaan gaarno marka runtii dhalinyarada aad iyo aad yaan idinkaga mahad celinaya waan idinku bogaadinayaa shaqada wanaagsan aad samayseen waxaan rabaa inaan bedelno imagekaas xun oo foosha xun oo la rabo in lagu shaabadeeyo mar walbaba si Soomaaliya loogu arko dadaan wax lagu darsan karin dalaan iimaan karin
inaan u ekaano marka intaas lagu guulaysto dadku raba inay wax maalgashadaan xaggee aadayaan lacagaha adduunka lagu maalgashado waa lacag aad fara badan trillions yaa available diyaar ah oo maalgashi la rabo in la maalgashado meelaha lagu maalgashanayo waa meelaha dowladaha degan ay joogaan meelaha amnigu uu ka jiro meelaha dadka maskaxda furan idinkoo kale ay joogaan oo ganacsatadooda diyaar u yihiin inay qaabilaan cid walba oo doonaysa inay maalgashato meelahaas way meelaha la maalgashado marka haddii marka annaga aynan u istaagin oo dowladdiinu saa sheegteen aysan ka shaqaynin stability aysan ka shaqaynin dowlad wanaag aysan kaashan dhallinyarada khaasatan idinkoo kale ah iyo guud ahaan xoogga shacabka soomaaliya aysan kaashan dad baa ka faa'iidaya intaas oo raba inaan dib u dhacno adduunyada soo martay marka wax yar aan idin tusaaleeya marka oo weliba waktiga dhow waxaan soo marnay wax ka daran soo maray ku badbaaday waxaa wadaan oo innovationka ah ku badbaaday jarmalka ka mid ah jarmalka dagaalkii labaad waxaa uga dhimatay 6 milyan shacab iyo ciidanba weliba waxaa dhintay dadkii kariimkooda ahaa oo injineeriska ah farsamayaqaanadooda ahaa markii dagaalkii uu ka dhammaaday waxay geliyeen technical institutes iyo geliyeen investment iyo geliyeen iyo dowlad wanaag haddana dee waxa weeye waa waddanka saddexaad ama afraad ee adduunka ugu dhaqaalaha badan adduunka marka la fiiriyo Swedenka aad sheegteen oo ka soo qayb galay bandhigiina iyagana waxay focus gareeyeen technology iyo dowlad wanaag haddaan doonayna marka inaan ka kacno dhulka oo dalkeenna uu noqdo dal markiiba istaaga oo ka hormara afrikada kale waa inaan iyadana naftigeeda aan technology-ga aan xoogga saarno iyo science-ka dowladduna ay hormuud ka noqoto oo meesha ganacsatada ay ka maalgelinayaan dowladda naftigeedu policy-gii ay diyaariso ay abuurto institutes ay diyaariso oo technology iyo science research lagu sameeyo oo dadka aruuriya oo organize gareeya oo ganacsada naftigooda ka raadiya maxaa la yiraahdaa sponsor ka raadiya dhaqaale ka raadiya adduunka kale dhaqaale ka raadiya azuma jaamacado iyo institutes kale azuma waxaan aaminsanahay dadka Soomaaliyeed dad ka maskax fiican inay jiraan ma aaminsanahay dad ka firfircoon inay jiraan ma aaminsani sida hadda aan nologa yaaban yahay adduunka negative-ka waxaan aaminsanahay in nologa yaabanaan doono positive-ka haddaan aadno xaqiiqatan oo meesha hadda magaxumada aan ka leenahay negative-ka inaan magac fiican aan ku keeni karno haddaan aadno dhanka wanaagsan iyo positive-ka marka inaan xoojinaa loo baahan yahay si aan awooddiina iyo maskaxdiina iyo aqoontiina aan sponsor gareyno oo aan wax kugu darno idinkana dadaalkiina wada shaqadiina iyo maskaxdiina iyo waqtigiina iyo juhdigiina waxaad u gelinaysaan idinka naftiina kaliya maaha image-ka Soomaaliya inaad wax ka bedeshaan marka waa mahadsantihiin insha Allah waa noo sanad soo socda hadduu Ilaahay caafimaad iyo nolol siiyo بسم الله الرحمن الرحيم